sidee loo sameeyaa buy limit. Buy limitku waa qiimo uu suuqa gaarin in lagu gato ama in suuqa isbaaro u sii dhigatid kale. tusaale ahaan haddaan fiirino Solana kale ayaa maalgashi uga jira. haddii marka caawa markaan seexdo Solana inta dhacdo ee 140 ee tagto kale inaan iibsadaan rabaa marka inaan soo jeedo ku dhafrana ma rabo anoo chiifa in la igadaan rabaa marka amar ayaan siinayaa suuqa exchange-ga algorithm-kiisa ayaa amar siinayaa waxaan leeyahay Solana hadday soo daadato ay timaado 140 igad ayaa leedahay buy ayaa tagaysaa buy markaa tagtid limit waa inuu kuu taagnaadaa limit markuu kuu taagnaado waxaa samaynaysaa qiimaha hadda ku qoran 148.56 sentiga waa ka tirtiraysaa 140 ayaa ka dhiganaysaa kadib lacagta USDT-ga ah ee ku gadanayso ayaa meesha gelinaysaa waxaa leedahay $10 ayaan rabaa inaan ku gato haddii ay soo dhacdo ay timaado 140 maxaa qiimo ahaan u helay 0.71 Solana ayaan u helay waxaan leeyahay buy sol ayaan taabanaa order created dalabkayga waa la abuuray meeshaan marka waxaa ujeedaa in la ii sheegay in buy limit la ii sameeyey taariikhda wax dhan uu ii sheegay barayska wax dhan uu ii sheegay xilligaas haddii marka barayskaas u yimaado si automated ah ayuu isku gadayaa marka waa isbaaro suuqa loo dhigto waa sidoo kale dadka qaar waxay u isticmaalaan markii ay mashquulsan yihiin oo kale ama isleeyihiin suuqii oo kale ay ka tagin ay aad ugu isticmaalaan marka waa muhiim inuu qofku fahmo xeelad walba oo suuqa ka shaqeysa meesha suuqa waardiye lahayd oo laagtana lahayd suuqa ma soo dhacay lahayd waa ku xirnaysaa waa ka tagaysaa tartiibtaada mar walba waa in ay lacag ku jirtaa meeshaan taas xoog saar